sidoo kale ani waxa ay dhahday umuliso wadankooda macnaha midwife association-ka wadanka Turkiga ka dhisan waxay u tahay madax sidoo kale markii la joogo international-kana waxay u madashaa wadankooda midwife ahaan umuliso ahaan 21 yıldır ebe hocasıyım. Ebeler yetiştiriyorum. 22 sano waxaa soo saara umulisooyin aan waxa ahay umuliso PhD Ve bütün bu özelliklerimle ebelerin gerçekten anne bebek sağlığını değiştireceğine gönülden inanıyorum. sidoo kale waxaa aaminsanahay umulisooyinka inay wax ka bedeli doonaan hooyooyinka iyo caruurta caafimaadkooda. waxaan rabaa kaliya inaan halkan ku daro anoo ku hadlayo magaca wasaaradda caafimaadka inaan idin sheego wasaaradda caafimaadka waxay wadaa sidaan oo kale gabdho midwife ah oo la tababaro oo ilaa iyo 4 gobol oo Soomaaliya ka tirsan in loo tababaro sababtoo ah maxay ahayd kaliya haddii xamar lagu joogo dadkii ma wada gaari karaan si loo gaarsiiyo maxay ahayd rural area ama dadka muxuu ahaa meelaha fogfog degan maadaama hadda intii waxaan sakan garaynaa laga sheegay dhibaato ah ee ka jirta wadanka oo ugu horeeyaan inay hooyooyinka umul raacaan waxa keenayeen waxay tahay dadkii deegaamada fogfog aysan helaynin qof qualified ah ama loo tababaray oo xirfado caafimaad oo umulisooyin ama nurse labadoo mid ka yarta noqotay aanan jirin marka dhibaatada waxa keenayo meelaha fogfog dadkii oo na tagayno kulli muxuu ahaa magaalada xamar iyo meelaha u dhow wada joogo saas darteed wasaaradda caafimaadka waxay sameysay inay muxuu ahaa tababaraan dad umulisooyin ah si loo helo tayo caafimaad oo loo gaarsiiyo waxaanan u sameynay degmo kasto in dad laga soo qoro si degmadii ay ugu noqdaan marka runta aad iyo aad u mahadsantihiin fursadda qaaliga oo nasiiseen oo meeshan muhiimka ahoo koorso yar oo kooban oo lagu dhammaystirahayo ama laga faa'iideynayo aqoonta umulisooyinka lagu baranayo shahaado lagu qaadanayo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa caalamka aan ku noolnahay ilmaha wax hooya dhasha caalamka aan ku noolnahay kulligan hooyaan ka nimid haddii hooyadaasi aan la xanaanayn dhibaatada ka imaanaysa waxay gaaraysaa ummadda oo dhan sidaas awgeed hooyada in la siiyo ahmiyad gaar ah waxay muhiim u tahay nolosha bulshada oo dhan bay muhiim u tahay taasaa horta waxay tahay isansiga ama nuxurka koorsadan ay samaynayso gerekir. Niye? Yaptığımız hayrı duyurmak bize borçtur. Burada yapılan güzel işler Somali halkı içindir. waxaa u mahadcelinaa madaxa jaamacadda sidoo kale ku-xigeenka jaamacadda waxaa muhiim ah shaqo markay wanaagsan tahay in aan wada noqon hal oo ka wada shaqeyno waxay muhiim u tahay hadoodii waxa qabanoono waxay ku laaban doonaan shacabka Soomaaliya waxa noqonay u qabtay dadka shacabka Soomaaliya umulisooyinka shacabka Soomaaliya aqoon ku darnacamo Bu güzel hayır işinde bana da pay biçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Hasan Hüseyin abi, Nazan abla ve üniversite arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. waa mahadsantiin oo dhahay maadaama shaqada muhiimka ah halkan u wada joogno sidoo kale dhammaan jaamacadaha ka qayb galay dhammaan dadka ka soo qayb qaatay barnaamijka inuu noqdona wuxuu dhahay Soomaal maxadan jazakallah iyaga dhan Allah ka siiyo ajir iyo xasanaad waxaa marka bogaadin mudan meelihii ugu muhiimsan caafimaadka in hawshii laga bilaabay oo la yiri hooyadii dhanaalka iyo maartay umulisada iyo halaga bilaabo shaqadii dadka hala tababaro xirfadooda hala kordhiyo si ay u badbaadaan hooyooyin badan si ay u dhashaan ilmo badan oo caafimaad qaba runtii numberka hadda la sheego oo Soomaaliya laga sheego waa inta la gaari karo oo de Soomaaliya oo dhan hooyada beerta joogta iyo hooyada baadiyaha ari ku raacanaysa cid badan oo ka warqabtaa ma jirto laakiin inta hadda la gaari kara ayaan mar walba ugu hooseynaa marka haddii la rabo in la gaaro hooyada beeraha jooga iyo hooyooyinka ariga la jira iyo meelaha fogfog jira
walaalaheena turkiga ma gaari karaan cidda la rabo inay gaarto oo dadkaas ama wax barto dadka ka agdhow oo isbitaalada ka agdhow jooga ama servicekii in la gaarsiiyo ay tahay inay ka shaqeyso waa annaga marka waxaan rabaa inaan kula dardaarmo asxaabta nasiibka u yeelatay inay koorsigan qaataan in ay meesha ugu fog oo ay gaarsiin karaan baahida ugu badan oo ay ka qaban karaan shaqadaas inay ka qabtaan